Bulsho kasta oo horumarta waxa ay ku horumartaa isku duubnida iyo joogtaynta hadafkeeda. Kani waa Masjidka Nuurayn ee degmada Balad Xawo, waana mid ka mid ah masaajidda ugu faca weyn degmada. Masjidkan ayaa martigeliya jamaacooyinka ugu badan, gaar ahaan waqtiyada salaada iyo maalmaha Jimcada ee khudbada la akhriyo. Si kastaba ha ahaatee, masjidka ayaa marka aad tagto waxaa ka muuqda baahi ay tahay in wax laga qabto, taasi oo ah in masjidka uusan lahayn wax roog ah ama hal nooc oo roog dhammaystiran ah si bilicda masjidka ay u soo baxdo. Taasi beddelkeedana hadda lagu isticmaalo 3 roog oo kala nooc ah, muddana la soo isticmaalayay iyadoona weliba ay qayb sii bannaan tahay ama roog la'aan tahay. Sidaasi awgeed ayaa guddiga iyo maamulka masjidkani waxa ay yeesheen kulan masjidka dhexdiisa, kaasi oo ay codsi ugu jeedinayeen walaalaha khayrka jecel ee ku sugan dibad iyo dal intaba, si masjidka looga haqabtiro baahida roogga loo qabo ee masjidka ka jirta. Haddaba waa kuwan culimada iyo guddiga masjidka oo baaqaasi diraya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Maanta oo maalin Arbaca waxaan joognaa Masjid Nuurayn ee degmada Balad Xawo, oo culimadii iyo a'immadii iyo guddiga masaajidka ay dhinacyada iga taagan yihiin sidaad arkaysaan. Waxaan u nimid oo halkaan aan u taagannahay waxa weeye arrin ku saabsan dayactirka masjidka qayb ka mid ah. Sidaad arkaysaan, masjidka waa masjid ballaaran oo aad iyo aad u weyn. Wuxuu u baahday wax la yidhaahda firaashyadii ama gogoshiba u baahday. Gogosha hadda saaranna taqriiban oo hadda gabagabada waxaa la leeyahay ilaa 10 sano ay kusii dhowdahay. walidaalika walaalaha muslimiinta ah guud ahaan meel ay joogaanba, gaar ahaan dadka deegaankan u dhashay, hadday jaaliyada yihiin, hadday ganacsato yihiin, khayrkana jecel, waxaan ugu baaqaynaa, ugu yeeraynaa inay ka qayb qaataan dayactirka ama gogosha masjidka oo runtii aad iyo aad shay qiimo leh. Masaajidda Ilaahay oo la nooleeyana waad ogtihiin, shay walba waxaa lagu qiimeeyaa waxa uu ku magacaaban yahay, wa anna almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada. goobahan Ilaahay baa iska leh. goob Ilaahay uu leeyahayna wixii aad la baxday waa wax adiga aad ku hirinayso. qofka akoonkiisa aakhira ayuu dhiganayaa. waalidiintiina ayaad u bixin kartaan. sadaqa jaariya ayay noqonaysaa inta lagu tukanayo, inta quraan lagu akhrinayo, inta masjidkaasi la camirayo, inta ay dadka muslimiinta nadaafadiisa iyo wanaaggiisa iyo udgoonka gogoshaasi iyo masjidka bilicdiisa ay dhisan tahay. qof kasta oo wax ku darsaday dee ajirkeeda ayuu helayaa. waxaan rabnaa marka inaan idhaahdo walaalaha muslimiinta ah, meel aad joogtaanba Ilaahay khayr ha idin siiyo. masjidkaani dayactirkiisa iyo gogoshiisa oo la hagaajiyo inaan ka qayb qaadanno. maanta oo taariikhdu tahay 28 bishii 9aad 2022 waxaan dhex joognaa Masjidka Nuurayn ee degmada Balad Xawo. suu sheekaba carabka ugu dhuftay khayr Allah siiyo. waxaan u taagannahay maanta sidii masjidka gogol cusub loogu hagaajin lahaa ee loogu soo gadi lahaa. runtii jamaacada masjidkana runtii xaqiiqatan dadaal badan bay sameeyeen. lacag baa hadda ilaa 4,000 oo doolar baa hadda masjidka loo hayaa. 15,000 baa lagu soo qiimeeyey masjidka baahidiisa inta gogoshiisa ah. marka 12,000 baa hadda marka baahida taagan. dadka muslimiinta oo hadda qayladhaanta u dirinayno masjidkan ugu qaylinayno intaa baa hadda noo harsan. marka waxaan cod dheer iyo cod gaaban ba ugu sheegaynaa oo codsanaynaa dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan adduunka dacaladiisa baahidaas masjidka ee gogosha in laga soo haqabtiro biidnillaahi caza wajal. maxaa yeelay masjidka hadda aad joodaan kulley muuqaalada waad ka arkaysaan 3 nooc oo kala gedisan oo roog baa taallo oo duug oo dhammaaday oo hadda jooga xilligii la laablaabi lahaay oo dee meel iska dhigi lahaay bay joogaan. marka haddii hadda la laabo oo meel kale la dhigana dee meeshii waa iska maaragtahay waa shimiidadaas weeyaan. marka dadka jamaacadan kuma tukun karayso. marka waxaan leenahay insha allahu tabaaraka wa tacaala dadka muslimiinta aan ka rajaynaynaa in masjidkaas la soo qurxiyo si Ilaahay idinkana idiin soo qurxiyo. waxa aan soo jeedinaynaa waa codsi aan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta ah meel kasta oo joogaanba. baahidaas aan soo gudbinay oo beydkaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala baahidiisa ah ee gogoshaas ah in nagala qayb qaato inala saacideeyaan
arrinta aan codsanayna taas iyada weeye. baaraka allahu fiikum, ilaahay ha idin xifdiyo subxaanahu wa tacaala. 15 kun ayaa lagu qiimeeyey, waxaa la hayaa baa la yidhi 4 kun baa laga hayaa, 11 kun oo lacag ayaa dhiman baa la yidhi. masjidku waa masjid weyn oo faras magaalada ku yaalo. masaajidda waaweyn ee dacwada iyo khayrka uu ka socdo ayuu ka mid yahay. haddana dayaciisu aad buu u fara badan yahay. haddana maqdiceenaan ugumaana talagelin baahida guud ee masjidka inaan soo wada bandhigno, laakiin baahida hadda noogu daran ee masjidka naga haysato waa gogosha. sida laga dhawaajiyey, gogolo kala horhoreeyey oo kala qadiim ahoo dhammaad ah oo kala kalar ayaa yaalo. qaybtan hadda aan taagannahay oo ka mid ah qayb masjidka ka mid ah, wax gogola xataa ma saarno. masjidku waa 30 qol. dhirirka ama dhanka ballaca waxaa weeye ilaa 6 qol. sidaan dhanka dhirirkiisana waxaa weeye ilaa 5. marka 6 lagu dhufto waa 30 qol ayuu masjidka ka kooban yahay. marka qaybtan shanaad ee u dambeyso gogol waa loo waayey. muddadii ugu dambeysay ama sanadihii ugu dambeysay ama intuu masjidka dhisnaaba qaybtan wax gogol ah ma lahayn. dacwaana ka socoto oo hadda waxaa ka socdo cilmul faraa'id ayaa lagu dhigaa. ardayda la baraya cilmul faraa'idka khamiista iyo jimcada gogol ma haystaan. isbuuca iyo habeenka bacdulmaqrib intaba 5 beri waxaa ka socdo culumul qur'aan baa ka socdo, gaar ahaan dowra tasiixul qur'aan baa ka socdo. ardayda iyo macalinka daraasadaas loo dhigay iyo macalinka bixinayana wax gogol ma haystaan. masjidka inta kale hadda gogosha haysatana gogoshiisa waa gogol qadiimi oo waagii la dhisay la dhigay. walaalayaal, waa sidii ay culimmadu u sheegeen iyo guddiga masjidka, baahida hadda u weyn aan u taagannahay waxaa weeye waa gogoshii masjidka. marka ilaahay ha idan barakeeyo. waxaan u baahannahay in aad nagala qayb qaadataan gogoshaas masjidka la dhigi lahaa, in la dhammaashitiro u baahan. maxaa yeelay hadda lacagta la sheegay waa 15 kun oo masjidka hadda ku filan. hadda waxaan gacanta ku haynaa lacag 4 kun ah. marka dadka muxsiniinta walaalaha naga ah oo ilaahay uu hantida siiyey, waxaan ugu baahannahay inay na garab qabtaan, ay noogu kaalmeeyaan in masjidka ay noo gogosha noogu gadaan. waa in kala maarmi waynay. marka waxaan idinka codsanaynaa oon idinkugu ducaynaynaa alla subxaanahu wa tacaala agtiisa in uu uu idinkugu kaalmeeyo maalinta yowmalqiyaama, in masjidka gogoshiisa maanta aan u taagannahay inaad nagu garab qabataan oo masjidka gogoshiisa aad nagala qayb qaadataan ayaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta oo daarfaha caalamka ku nool. haddaba daawadee lambarada iyo akoonnada masjidka waxaad ka daalacan kartaa shaashadda. waxaadna ogaataa wixii aad maanta la baxdo in berri aad abaalmarintooda ka heli doontid allaha weyn ee irsaaqda bixiyo. maxamuud Filibiin, Balad Xawo.